saddex gaar inta la soo iibiyo Soomaaliya lagu buufiyo in la keeno laakiin wax aqli gal oo soconaya ma aha sababtuna waxay tahay Soomaaliya hay'adda duulista Soomaaliya ama Somali Civil Aviation waxay hoos imaadaa ICAO oo hay'adda caalamiga oo duulista rayidka si wanaagsan hay'adda duulista rayidka waxay u baahan yihiin hay'ado kor barnaamijka hoos imaada la dhaho USOAP macnihiisana wuxuu yahay waa hay'adda ayadana oo kormeerid inay kormeeraan hay'adaha duulista wadan kasta si wanaagsan so audit program amal waa in intay ku imaadaan ay ku tijaabiyaan inaad u qalanto in kale si wanaagsan auditkiiba maana marin taas waa mid waa garad Soomaa audit ka darabna inaan marno waa inay diyaaraddu hay'adaas marka koowaad waa inay bilowdo inay wax sharciyeyn karto waa inay bilowdo oo u proof gareysa ama ay tusto ICAO oo kale ay muujiso inay safety-gooda ama badbaadintooda ilaahay wax badbaadiye inay badbaado tahay dhinacooda duulista sax programkaas oo dhan maana marin waxayna qaadataa sanado badan bay qaadataa inaan marno sax marka haddaan diyaarada la keeno hadda diyaaradaha social media la wadwaday waa waxaan artificial intelligence AI ga la dhaho sababta hatta magaca ku qoran hatta waa iska qalad waa iska arkaysaa waa wax computer laakiin wax dhiba ma laha ana jeclaan lahaa adiga jeclaan lahaa inaan Somali Airline aragno laakiin xaqiiqda maanta taagan baan ka hadlaynaa inaynan adag tahay oo wax muddooyin badan qaadan doonto ay tahay marka waxaad ka wadaa in Somali Airlines ay ku soo noqoto hawada ama shaqayso shuruudihii laga rabay inay buuxiso baadkaan doonto inay buuxiso waqti yar oo koobanna macquul ma wakaasa ma aha ta Somali Airline hay'adda duulista oo Soomaaliya ama Somali Civil Aviation sax waa inay shuruudaha ka soo baxda oo dhinaca ICAO uga soo baxda ICAO waa hay'ad caalamiga ah si wanaagsan saldhigeeda uu yahay Chicago convention-keeda Soomaaliya ay ku saxiixday 1986 si wanaagsan waa garad Soomaaliya marka dhaqaale ahaan meesha ay Soomaaliya maanta maraysa waa ka wada warqabnaa dadka daawanaya dhamaan si wanaagsan ma kula tahay marka hadda 2022 baan Kenya Airways 290 milyan ay dawladda dhabarka saartay ma kula tahay marka dawladdeena inay dhabarka saaran karto lacag inta la eg laakiin jeexo maxaa diidaya inaynu afar diyaaradood ka soo gadanno sax magacayga ku buuxsano sax ku buufino rakaabna saarno intaas waa samayn kartaa waa samayn kartaa waxaan ku leeyahay ma register gareysan kartid hadaa rabtid oo inta bas inaad Soomaaliya kaaga dhax shaqeyso inta Muqdisho ka baxda Hargeysa to meel kale ay aado dhaqaale markaa ma samaynayso ilaa waxa u sameynaynaa inaan dhaqaale in laga helo oo waxa ay iska bi karaan tan kaleetana xoogaa waxa u sameynaynaa pride ama wadankii in la dhaho sharafti iyo ciise wadanka laakiin waxa ku horeeya wax kaste dhaqaalaha ka horeeyo waa garad Soomaa dhaqaale ahaanti beenan keenaynin sababta hadda Soomaaliya way jiraan hadda diyaarado ama waxay ka wada register gareysan yihiin sida Jubba ama Premier oo kale kulligu ama Ocean oo kale waxay ka register gareysan yihiin Kenya Soomaaliya ka dhex duulaan marka kuwaas oo kale hadii inta lagu buufiyo lala hadlo laga iibsado waa way dhici kartaa laakiin wixii waxa waaye ma tahay wixii ay isku ogeyn ilaa su'aasha waxay Somali Airline ma tahay heerkii waaye marka su'aasha taagan marka hadalkaaga adigu markii aad ka dhawaajisay waxaad ka wada sida halka dhaysay markiina waaba shay markiina dadku oo cadeey waxa ere marka ma shalay baa saxdan maanta saxantay marka labada waa saxnaa waa kartama shalay intii aan ere oo inayna macquul hadda ahayn hadda la joogo ba maanta na dhahaaya duruufaha